shirkan waxa lagu magacaabay shir aaya ka tashi waxaanu sheegaynaa oo dowladda u sheegaynaa dowladda federaalka dowladda Puntland isimada dhaqanka Puntland kuwa Soomaaliyeed kuwa kasta in aanu Suldaan Maxamed Cabdullaahi Cartan oo ay beeshu wax badan ka tirsanaysay wax badan ugu dulqaadatay oo aanay jirin cid loo aanaynayo inay la wadaagtay qoys ahaan iyo guri ahaan iyo adeer iyo ila adeer iyo awoowe iyo midna inuu ku leeyahay kiiska waxaan loo aanaynayno ay ka madax banaayeen tolku inay tirsatay beeshu inay isaga ku gaar yihiin arrimihii iyo mas'uuliyadii beeshu lahayd iyo habkii dhaqanka oo uu baalmaray oo noqday keligitalis waxay beeshu meeshan isugu timi inay kala noqoto kalsoonidii ay waagii hore ugu dhiibatay mas'uuliyadda dhaqanka guud dhaqanka madaxnimo ee suldaan inay kala noqotay ayay ka cadaynaynaa golahan aan joogno inta kadib sidii ragga iga horeeyay sheegeen waxa jira shirka in beesha uu ka dhashay Maxamed Maxamuud oo golahan fadhida waxgarad iyo guurti iyo culimo iyo wax walba ka joogaan in laga sugayo kowda bisha lixaad xubintii bedeli lahayd Maxamed Cabdullaahi Cartan oo beeshu masiirkeeda iyo ku aamini lahayd aayaheeda aad iyo aad baynu uga sugayaa tixgelinta iyo soo xulidana markii hore beesha baa wadaagta kale ayaa xushay Maxamed Cabdullaahi markan hadda iyaga laga sugayaa inay soo xulaan qof lagu aamini karo masiirka oo ummadda la tala ah oo aan goonigoosad iyo gaar socod midna ahayn ka taliya masiirka beesha kalsooni kala laabasho isinimo ama suldaan annagoo ah xuqaasha beesha bahwadaag dubays ee ku saxiixan warqadda wakiilna ka ah beelaha bahwadaag dubays kadib markii isinka ama suldaanka beesha Maxamed Cabdullaahi Cartan ku dowladda federaalka ee Soomaaliya ku dowladda Puntland ee Soomaaliya og isimada dhaqanka Puntland og isimada dhaqanka Soomaaliyeed og dhammaan ummadda Soomaaliyeed ujeedo kalsooni kala laabasho isinimo ama suldaan annagoo ah xuqaasha beesha bahwadaag dubays ee ku saxiixan warqadda wakiilna ka ah beelaha bahwadaag dubays kadib markii isinka ama suldaanka beesha Maxamed Cabdullaahi Cartan uu ku sifoobay xilgudasho la'aan uuna gabay hawshii loo igmaday kadib markii uu ka dhigtay ama talada u marorsaday kuna tagrifalay awoodihii kadib markii uu ku sifoobay xasho ballanfur iyo kala qaybin beelaha dhexdooda kadib markii aan la tashanay qaybaha kala duwan ee bulshada bahwadaag dubays waxaan go'aaminay laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 13 bisha 3 2022 waxaan ka qaadnay kala noqonay xilkii isinimo ama suldaannimo ee uu hayay beelaha bahwadaag dubays waxaa sii haynaya hawlihii guddoonka ee isinimada ama suldaanka xuqaasha beesha bahwadaag oo go'aan ku qaadata hab tala wadaaga iyo ilaa inta laga soo dooranayo isin cusub waxaa beeluhu isugu imanayaan shir lagu dooranayo isin cusub taariikhdu markay tahay 6 bisha sanadan aan ku jirnay 2022 kowdeeda kaasoo lagu qaban doono degmada Dhahar ee hadda aan joogno waxaa laga codsanayaa beesha Maxamed Maxamuud inay beelaha bahwadaag u soo gudbiyaan isinka cusub ama suldaanka cusub oo hanan kara hoggaanka reerka guud ahaan ugu dambeynna waxa laga codsanayaa inay soo gudbiyaan bishan lixaad ee soo socota kowdeeda sanadan 2022 oo ah xilliga lagu ballamay shirka beelweynta bahwadaag dubays gabagabadii ugu dambeyn waxaan ku wargelinaynaa dhammaan
cidda ay warqadani ku socoto iyo cidda ogeysiinta ku lehba in laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 13 bisha 3 2022 aanay kala macaamili karin isinka xilka lagala laabtay wixii khuseeya beelaha Dubays ee Bahwadaag Dubays. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وقاشة كسحيحان بهوداق دبيس عاقل حسين قرحان قيد عاقل موسى السلال عدور عاقل أحمد محمود سمتر عاقل عابي جامع فارح عاقل سحرديد علي عمر عاقل محمود عمر موسى إي عاقل حسين محمد كتنبي وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. shirku waa shirka la idin sheegay oo haatan bahawadaagaydo meesha fadhiya danaha uu leeyahayna dee mar horaaba la idin sheegay oo hadeer saaka dee rag badan baa hadeer iga horeeyay oo hadlay marka sideedana waxa loo baahan yahay ninka adigu aad dirsanayso oo markaas aad dirsanayso inaad ka baaraan degto waa run wixii fudayd lagu galaaba waa dib badan yihiin waayo ninka la rabaa waa nin rabbina yaqaan ragna yaqaan runna yaqaan ninka saddexdaas sideedaba ninku waxaan inta aan wax kuma wadi karo ninku waa inuu saddexna yaqaan saddexda mas'uul waa inuu ninku leeyahay marka de wixii aanu tabtabanayno ka tabanayni de waanaan ka baaraan degino nin yaro aabiid intayo hadii baxugmaayo caruurta la yiraahdo shaqeeyo sidaasaanu markii maartay ugu maartay markiiba ugu maartay dusha uga saaray waayo tacsidii iyo isaga maartay calaamasaarkiisa isku wax bay ahayn toddoba ashay wiilkuna wiil yar aabiid dhalay oo hadii caruurta ay raw shaqeeyo horta isagu saasuu meesha ku yimi haba ahaadee wiilka yari waxba ka qaloocday tolna lama tashan waana nin baa wuxuu yiri la yiri madaasaasoo kale maalin warbalnimayo gudiga ahay bal ragaasoo kala doorto oo bal hebel iyo hebel waxnu soo doorto oo nin baa wuxuu la yiri nin buu helay nin markaas alxamdulillaah rabbil caalamiin oo hadaan bahday ninka aan hungoomiso miyaan xumahay buu yiri maanta isagu nin ma haysto nin burcu jira dadka inta leego 10 qoys ninka ma haysto marka horta sidaa darteed waa nasiib daro odaga intaasaanu yaani maartay hadeer ku sii dardaarayna anoo wax ka badan u gelimayno hawluwa badnaayeen yeelkeeda inta aanu hadeer saakaano ku bedelay waa inta la idin sheegay iyo in badan oo hadee xugmay de meeshu waa maartay lama wada furfuri karo waxaasi in badan oo iska qarso labadaba waa jireen marka hawsha caynka weeye haddana ragii anaga iga horeeyay de hawdalku waxa la yiri ma wuxuu leeyahay maartay wixii yiraahdo qabiilo tiraahdo ninkama qabiilo waxay tashato nin ma oran waayo sideeda de hadeer qabiiladii baa wada sheegtay oqaashi bay ahaayeen marka sidaa darteed de waa sidaa la idin sheegay wanaag iyo sharaf baa tolku isku og yahay xurmu isku leeyahay oo sidaa la isu xurmeeyo waa sida tolku yahay haddee hawshu intaasay ku dhantahay anigu wax ka badan hadda aan sii oranaya ma jirto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka horeysa ilaahay aynu ka cabsano subxaanahu wa tacaala qabaa'il ilaahay wada dhaliyay oo rixim wadaaga weeye dadka halkan fadhiya riximka in la ilaaliyaana diinta ayay ka mid tahay khilaafka in laga digtoonaadaana waa la mid insha allahu sida ay odayaashu cuqaashu ugu dadaaleen inaan khilaaf dhicin arrintaasna ay go'aamada uga qaateen shirar dambe oo turxaan bixin iyo masiirka talinina ay soo socdaan oo lagu ballamay ilaahay nabad iyo barwaaqaha nagu gaarsiiyo waxay ka tarjumaysaa dadku sida ay u bisil yihiin una ilaashanayaan waxa ay yihiin iyo midnibadooda oo waxa weeyaan aanay wax gudub u sameeyeen arinta laga hadlay suldaanka ku saabsan iyo saldanadu war iguma laabna aniga waa sidii loo sheegay waxaan kaliya kelmad kooban ka oranayaa duruufaha maanta dalka oo dhan inaga ayuu ina soo eegaya inuu ugu dambeeyay ummadan ama reerkan ama dadka halkan fadhiya ayaa la soo eegay su'aashii la isweydiiyana iyaga bay ahayd
waxa loo soo eegayna waxay arrimihii doorashada ee aynu ku jirnay arrintaasi siday u dhacday Soomaaliya oo dhan way ka dharagsan tahay guud ahaan gaar ahaan waxaad in badan Soomaalidu maqashay odayaasha oo aad u hadlaya oo fidna ka digaya dagaal ka digaya dib ka digaya marka la hadlayay ee la digayay waa la arkayay waxa soo socda laakiin laba waxyaabood ayaa waxa weeyaan baajiyay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadda ku galadaystay arinta koowaad waxay ahayd sidii wax loo maamulayo ummadda oo dhanba dibta ay ku dhacday oo aan meel ay ka dhacday Soomaaliya aanay jirin arinta kalena waxay ahayd gudintii dhilista ahayd ee aan lahayn waxba nama yeeli karto daabkaygii baa galay mar haddii gudinta daabka ay ku jirana dee inaad cid kale iska sariirataa macna samayn maysa marka hore waa inaad gudaha ka saxdaa aanu social media waxyaabahan la yiraahdo dadka isticmaalo kuma jiro waxaan si sheeka barelay ku haya dadka ugu badan ee ka hadla inay yihiin dadka deegaanadan sanaag la isku oran jiray iyo galbeedka gobolka bari dega dadkaasi inta badan waxay maagaan maamulka Puntland waliba ninka odayga madaxweynaha ka ah wax lagu maago wuu galabsaday laakiin waxay ka boodaan cid ka mudneed in laga hadlo ama la saxo waad maqasheen maalmahan waxaana lagu lahaa war ceebtii dhooba idinka raacday Jamaaliya idinka raacay inagu ceebtii dhoobana waxaynu saarnay dani tii Jamaal la weyn u raacinay laakiin labada ceeboodba waxa ka shaqeeyay inaga waad ogeydeen dhooba markii la weeraray dhiigii yaala lagu dul codeeyay isinkii ugu weynaa Warsangeli wuxuu joogay halka ee guud odayaashii budigaha u ahaa xaafadiisa hoos ahana way joogeen cid ka hadashay wali soo qaaday arintaan uma maqan dab hadaan iraahdo ma afka ay guban buu yiri kuwii siyaasadda inagu matalayayna xildhibaanadii waxay ahaayeen laba xildhibaan marka laga reebo kuwii waxa weeyaan in la rido u codeynay haddii la riday oo waxa weeyaan dhaxalkiisi la isku haystayna hal inoo xildhibaan dhooro la yiraahdo marka laga reebo intii kale waxay noqdeen mid isagu dhaxalkiiyo kursigii raba iyo mid waxa weeyaan u codeynayo ka shaqeynaya nimankii waxa weeyaan siyaasiyiinta ah ee ku jiray dawladda Puntland oo marka xirarka hayay waxay noqdeen halkii ninkii aabihii la dilay oo yiri waan u soo aarayaa ciidanka ka haystay hadduu soo noqday dumarkii alalad iyo mashxalad ka horgeeyeen oo yiraahdo war imisaad u soo dish wuxuu Allahumma naxariistaanka annaga bay nagu dari gaadeen nin walba wuxuu ka baqay in dani iyo aarankiisu ay ku daraano hoos buu waxa weeyaan u ooyo aan ooy albaabka ay xilib weeyay tanina waa la mid isinka xigay baa ka shaqeeyay kuwii siyaasiyiinta ahana habeenkii bay qolyada shaaha la cabi jireen waxay oran jireen Jamaaliya misaga meel helaya yaa wax samayn kara waa la iska hanjabaya waxaasi waa suma wallahi Soomaalidu sheegi jirtay waxaasay ku sasaban jireen si ay iyaga u raali galiyaan waxay ka wada shaqeeyeen sida haddeer wax u dhaceen inay u dhacaan arinta markaynu inagu eedeen iyo dhalisheena saxano oo qaadano oo isku sheegno ayaa ka mudan inaynu waxa weeyaan reer islaameed ay un afaata ka saac u taaganahay Facebook iyo waxyaabaha la midka ah haddaan soo noqdo arintan oo aan soo koobayo doorashadii siday u dhacday annagu waxaanu aaminsanayn maalintii koowaadna aan sheegnay waxa meesha yaala 169 inaan kursi ahayn ee wax kale oo meesha ku jiro macna kale dhalinyaro badan baa is sharaxday dhalinyarada waxaanu ku niri dhirtaba geedaan la jarinayo ogow lama garaacan go'i waa inuu jiro nalamay garan waxa weeyaan waxay ku adkaysteen in loo boobo kursiga oo dani u boobo haboobe waxa ku fariistay nin kamida beeshii kursiga lahayd علي مهدي أحمد علي علمي محمد علي علمي وانين جاي كرسيجا إلا dadkii xaq u lahaana kamid ah meesha kaliya loo kala doonaa waxay ahayd anagu aan ku siino iyo dani baa isiinaya kaba soo qaad haatan inuu ku siiyay saaka ayaa tala ku taala cali ayaan leeyahay adeer taladaasi waxay tahay codkan hadaad anaga nagu matalaysid dadkii ku kala irdhoobay waad ogtahay percentage-ka ama inta ku dooratay waad garan kartaa tolka ah inta ku raacsaneed cuqaashaada waad garan kartaa inta waxaan kula fariisina waad garan kartaa
intii kale inay kaa maqnaato macna ku samayn mayso laakiin waxa macna ku samaynaya iyagoo isku dhan inaad waxa weeyaan dalabtid inay raali ka noqdaan oo aad ku matashid kursiga hal furay leedahay laba furan male furay leedahay waxa weeyaan inaad tiraahdid Saciid Cabdullaahi Dani dad badan buu ku danaysto ka tagay anna saaka waa ka tagay codkii annaga aad noo soo celisay annaguna Dani siin mayno codkayaga si cad inaad u sheegtid oo meeliya ka sheegtid waranu tolkay baan matalaya tolkayna cod kuma hayaan anna kuma hayo oo saaka aad ka xiriir furatid haddaad ka xiriir furan weydid oo aad sida ku raacdid waxaad ogaataa Dani waa kugu danaysanaya adiga iyo warqadda codbixintu isku mid baa u tihiin warqadda codbixinta marka lagu rido sanduuqa ama ha ugu qoraato ama ma ugu qoraatay markaas ugu dambaysa aduna warqadaas aad noqonaysaa maalinta doorashada kugu dambeyn doonta hadduu madaxweyne noqdana maalintaas kugu dambeynaysa hadduu noqon waayana maalintaas kugu dambeynaysa waxa ku ka haystay ma ahayn wuxuu adeeg kula raba ama kula jecel yahay waxay ahayd in aad codsiisid 48 xubnood baa Puntland ka baxay labada aqal waa 48 warqadood oo kuwa codaynta ah haddii marka waxa weeyaan waraaqahaasi dadku ay sidii iskaga daba galaan ilaadan Dani baan la siiyay waa u codaynaynaa waraaqaha ka duwanaan maayaan ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland waxaan leeyahay dhibta iyo bambada doorashadu waa bamba la soo dhaxdhigay ummadda Soomaaliyeed loogu tala galay inay isku layso ay ku baaba'do wax khayr ma sidan loo dhigayna waxa weeyaan waa si aad u khayr daran ummaddu markay inay ku baaba'daan loogu tala galay maanta waad ogtihiin oo waxa weeyaan labadii walaalaha ah baan ku wada hadlay sidii loogu tala galayna ninka ardayga koowaad ee u fuliyay Saciid Cabdullaahi Dani kuwa kale waxbay ka xishoodeen oo waxbay indhaha ka laabteen oo waxbay xeeriyeen Saciid iyo baan ku soo gabagabeynaya aarankiisa sida aad u soo maamusheen Puntland sanadihii ay jirtay doorashadan sida aad ku waxa weeyaan ku maamusheen baan saadaal yar ka bixinaya waxaad la mid noqon doontaan dawladihii iyo siyaasiyiintii laga adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka ee Hitler iyo Mussolini iyo nimankaasi markii la jabiyay gogoshoodina way ku sii ololiyeen markii hore oo waxa weeyaan gogosha ay ku hurdeen bay iska gubeen gogol kalena waxa weeyaan way ka waayeen adduunkii waxay gaareen in la isku caayo la yiraahdo waa haraadigii Hitler ama fashiistihii Benito Mussolini dadka waxaad maqli doontaan maalin dhow markii laga soo baxo doorashada federaalka hadda socota iyo kuwa badan shacabka idin tumi jiray ay leeyihiin wallahi anigu aaranka ma ahayne danaan ku wati wallahi anu Dani lama socone waxbaan ilaashanay taasa dambeyn doonta maalin dhow yaani halkana waad sii gubteen Puntland oo ummadii fidna iyo dabba dhex dhigteen oo sharaf aad ugu soo noqotaan idin ma taal xaqaana wax ka heli maysi xaqaana waxaad ka helaysaan ma jirto waayo Soomaali annaga inagu waaye aragtay waxa weeyaan waaye aragnimadii Soomaali ay annaga naga heshay ayay ka faa'iideysaa Soomaali ma rabto lacag la'aan Soomaali ma rabto qabaylkiisu qabsado is xunay Soomaali ma rabto cid aan laga xishoonay يعني qofku waa inuu wuxuun xaaleeyaa ama wuxuun xeeriyo weey marka waxaan idin leeyahay idinkana ayaamukum macduuda insha Allah ayaamiina way dhamaadeen ummadda Puntland waxaan leeyahay ha laga wada qayb qaato waxa soo kale sidii aan wadanka ugu soo noqdeen waxaan ku soo gabagabeynayaa beelaha waxa weeyaan deegaamadan oo waxa weeyaan iskaranaya waa isimadana sax sida aan u saxnay ama si kasi qurux badan u saxa kuwa hadeer siyaasadda waliba taa Puntland inoogu jiraana niyo inagu soo noqone aan badal wax yar baa ka dhimane assalaamu alaykum waraxmatullaah